Somaliland nabad jacaylka kuma doorsanayso taaka dhulkeeda kamid ah waa qodobka ay ku saabsan tahay baladayna warku waxaana qoray Faysal Maxamed Cabdi Faysal Farfarle Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay dawladnimada maanta ay ku naaloonayso ku soo gaadhay nabadda cagaha adag ku taagan ee ka jirtay dalka 32 sanadood ee la soo dhaafay taasi oo furo noqotay dawlad dhiska iyo horumarka dalku u jihaystay Somaliland waxa ay soo martay duruufo qalafsana oo nabadgelyo darro oo dalku kaga soo gudbay wada hadal ku dhisan isku tanaasul nabadgelyo darradu waa mid saameyn taban ku yeelato qofka ilaa qaranka waxaana ragaadisaa mustaqbalka jiilasha soo koraya iyo ummadda guud ahaan tusaale ahaan waxa ay dagaalada iyo colaaduhu isdhaafiyaan bulshooyinka adduunka xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay mar walba siyaasadeeda mudnaanta koowaad u ah inay adkayso nabadgelyada dalka isla markaana wixii khilaaf lagu xalliyo dariiqo ku saleysan wada hadal waxa laga maarmaan ah in madax dhaqameedka gobolka Sool ay si qoto dheer uga fikiraan mustaqbalka bulshada ay matalaan oo aanay mustaqbal xumo iyo dib u dhac u horseedin dhalinyarada iyo bulshada gobolka Sool ee dagaalku ka dhacay laascaanood oo uu dhibaato iyo barakac u horseeday waxa looga baahan yahay simada dhaqanka gobolka Sool inay ajiibaan baaqi nabadeed ee xukuumaddu soo saartay dhawaan isla markaana beesha caalamku ku talisay dhaqangelinteeda kaasi oo ah marinka koowaad ee xal u helista xiisadda iyo colaadda ay gobolka Sool ka wadaan kooxaha argagixisada iyo dhalinyarada deegaanku waxay shalay ciidamada qaranku ay tiknikadii ugu badnayd oo ah 10 gaari ay ka furteen maleeshiyaadka Puntland ee weerarka ku soo qaaday fariisimada ciidanka qaranka ee jiida laascaanood waxa kale oo gacanta lagaga dhigay 60 meeyo maxbuus taasi oo dhabartab ku ah duulaankii gardarrada ay ku soo xadgudbeen soodinta Somaliland ugu dambeyntii aynu u guntano sidii ay nabadgeliyo ugu soo dabaali lahayn gobolka Sool kaasi oo cid walba dani ugu jirto hase ahaatee lama aqbali karo in dalka ku biirmaan kooxaha argagixisada ah ma dhacayso in cadow dibadeed ku soo taambaabo xuduudda Somaliland